away meesha website-da ku jirteeda aragtay oo madaxweyne ku-xigeenku dhagax dhigay halkan weey waa jagaan waan iska leeyahay waxa weeyaan qodobadii bishii 9 ayaa la nasiyay jagada iyo jagada xeer ilaalintu ka dhisan tahay gabadh dhimantay Allah u naxariisto siraad cili la yiraahdo ayaa maalin la wada siiyay runaantii way hayd dul ku dhow agagaarka dawladda oo halkan saldhiga ahaa halkan halkan jagooyin badan baa ahayo booliisku leeyahay dabadeedna waa la soo waxa weey saldhiga la soo durkiyay nasiiboonaag jagadaydu way ka hadhay halka siraad cili Allah u naxariistay madaxweyne ku-xigeenku uu celiyay lacagteedii 12,000 baa laga baxshay anuguna waxaan u leeyahay taa wixii laga bixiyay in la celiyo anigoo u aqoonsan inay dhul dawladeed ku dhowdahay laakiin waxay la mid tahay un dhulka dawladda ama lagu jiro ee guryaha ama la dhisay ama jagooyin ahaanta loo haysto maan jagada la mid tahay oo adeerinta boorama un baan ka mid ahay sida kuwa loogu celiyay leeyahay celiyo xaq waan u leeyahay haddii dan guud lafteeda looga baahdo sida taa loogu celiyay leeyahay celiyo ama xaq u leeyahay haddii si dawlo baahiya la nooga wada qaadana dadka in ka mid ah nool waa la qaaday wixii sida isku awaad arkaysa 10 talaabo u dhaxeeya midna lacag siiyo dawladda xafiisyada ay leedahay oo dhagax dhigo way sadhacday waxa halka ragii booliiska ah jagooyinka lahaa halka ku lahaa way joogan nasiiboonaag iyaga waxa ku dhacay saldhiga ku dhacay halkaas ay ku soo hadhay dhagax halkan 3 lawd baa igu rognaa iyo 2 lawd oo ciida dadku way wada ogaayeen jagadii rooble inay tahay sharcigiina waa kaas wasiirkii arrimaha gudaha haloo fasaxay weeyaan warqadii u dambeysay Ismaaciil Yare dawladdiina rayaale waa taasi annaga iyo booliisku run ahaantii galin baan isku maxay haydaanay warday hadii dan guud loo qaadayo ama area booliis tahay sida kuwa loogu celiyo xuquuqdayda la ugu celiyaan arintaydu ahayd madaxweyne ku-xigeenku maan filayn inuu taana lacag u celiyo tan dawladda u dhaqay ina kana waxaan leeyahay sharci wax sharci ah nala taa wixii waan ogolahay sidii loogu celiyay dadka in la igu celiyo waayaana mulkiyo xaq u leh dawlad jirtay markaana ayaa bixisay haddii ay sidaa noqon weydo sidii loo siiyay kuwa wixii halkaas 14 sharciga ku qoran waa inta wax ka saacidina ma doonay waxa kaliya rabay waxa weey dadka halka meesha la midka ah xaqii la mariyo in la mariyo weeyaan taa rabay haddii si dhinac la raaco dhinacna la fogeeyo oo wadaniinta dhulka degan ma ka mid ahay madaxweyne ku-xigeenkuna ha ka noqdaan leeyahay arinta wasaaradda loo dhagax dhigayna hadday xuquuqdeedii celinayso welcome ha soo dhawaato waxa weeyaan waa dan guudna qofku waan kama soo horjeedo laakiin qofku wuxuu xuquuq u leeyahay in la dulsiyo raali kamay mana yeeli doono waxaan yeeli doonaa oran maayo laakiin waxa weeyaan odayaasha wadanka ka mid ahay agas xildhibaan baan ahay dawladda badan dawladdii hore waa soo dadkii soo shaqeeyay dalkan haatan dadkii shaqeynayay baan ahaa marnaba dhici maysa in xuquuqdayda lagu qaado nidaam qaldan oo aan sharciga waafaqsanayn